صعب صعب بدها نقطو صعب 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 بدها نقطو برتوا قرون بوعدي عيارها بربارتي لصوحوي saxaafaddu waa halbowlayaasha kaliya ee maaragtay bulshada u adeega aad baan uga mahad celinaynaa maadaama isbeddelka dhalinyarada garoomadeeda lagu horumarinayo ay qayb libaax leh ka qaateen meel walba marka saxaafadda aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan rabnaa insha Allah garoonkii waad u jeedaan maanta waa ka aan roogii dul taagannahay hawshiisa kalena FIFA hal wax bay standard u taqaanaayo maaragtay qiimaysa waxa ay qiimaysaana waa filli balaygi lagu ciyaarayay waka isagoo waliba standard fiican ah walina shaqadu ku socoto insha Allah waa gabagabaynayna filliga ugu adag insha Allah isagoo aan rabno wax goromyada khayriga waxyaabaha soo baxa khayriga waxaan rajaynaynaa waxyaabaha dhimana in aan insha Allah sii wadi doono hadii ilaahay idmo in waxyaabaha naga dhimana nala ku saacidaan rajaynaynaa dawlad iyo shacab iyo dal iyo dibadba insha Allah waxaan rajaynayaa marka sida ugu wanaagsan inaan u soo bandhigi doono wixii kharash soo galay wixii baxay qof walbana meeshii maqaamkiisu ahaa inaanu maaragtay soo bandhigno hadii ilaahay idmo iyo sidii noogala qayb qaatay saxaafaddu ha ugu horeyso dawladda Puntland ha ugu horeyso dadka shacabka iyo ganacsatada qaybteed iyo bahaweynta dhalinyarada iyo ashxaastii sida gaarka noo garab taagnayd insha Allah waa soo bandhigi doonaa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa meel khayr in ilaahay wax ka siiyo waxaan rajaynaynaa waxyaabaha dhiman in insha Allah nala fududeeyo aanu hore u sheegnay insha Allah garoomada Puntland dhan waa dhismi doonaan hadda kana ku xiga garoomo kala iyaguna diyaarsan sida garoonka Gaalkacyood garoonka Boosod hawshooda insha Allah tobnaad 15keeda la galayaa qardha insha Allah isaga waxba laga bilaabayaa madaxweynahana aad baan ugu mahad celinaynaa maadaama uu bahda sportska ee Puntland iyo Soomaaliyaba insha Allah uu yahay madaxweynihii ugu horeeyay ee kharash ku bixiya garoomada Puntland iyo meelaha lagu ciyaaro waxaan rajaynaynaa isagana abaal weyn baa bahda sportska iyo dhalinyarada Soomaaliyeed baa uga haysaa waa guul u soo hoyatay 22 sano kadib in garoomo cagaaran la helo Puntland insha Allah tobnaad 5keeda 10keeda insha Allah garoonkan fayskiisa koowaad isagoo standard wala furayaa muuqaalkan hadda wali ma ranjiyeysna ma habaysna siligi ma xirra laakiin shaqadiisii siligi waa yaala ranjiyeyntiisii wixii soo bilaabanaysa markuu hadda waxa socota rabarkii in lagu shubo calaamadihiisa iyo wixii lagu tolo kooleyntii la sameeyo wali giijintii baa socota marka insha Allah after 10 days ama 10 bari kadib waxaan rajaynaynaa muuqaalka hadeeran joogno muuqaal kale oo ka sii qurux badan inaan helo garoomada kale Puntland meel kasta ha joogeen meel kasta yaaleen insha Allah waa soconayna insha Allah ama darafyada ku yaaleen min Buuhoodle ilaa iyo Baran ilaa iyo Dhahar insha Allah waxaan rajaynaynaa in garoomadu si isku tashiyo dawladda iyo shacabkuba ka wada qayb qaataan waxa loo kacana waxa uu isku tashiga wax ka khayr badan ma jiraan wax ka wanaagsan ma jiraan dad baa lahaa markii aan hawshan bilaabaynay war waxba ma qaban ka dhaan iska daay hawshan Amar Faraweyne oo qayb weyn ka ah hawshan inay hirgasho sidoo kale ducaale oo isna ku sugan Nairobi iyo xagga waxbarasho aad isaguna ahaa dadkii ka soo maxaatay in loo kaco garoonkan kubadda cagta isagana waan u mahad celinaynaa sidoo kale wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada ciyaaraha Puntland oo ugu horeeyay wasiirka iyo agaasimahiisa guud iyo dhammaan bahda wasaaradda iyaguna oo door weyn ka qaatay sidoo kale xiriirka kubadda cagta Puntland oo u taagan dhammaan garoomada Puntland horumarintooda iyo kubadda cagta waxaan aad ugu mahad celinayaa madaxweynaha dawladda Puntland oo isaguna qayb weyn ka qaatay garoonkan inuu dhismo madaxweynaha waxaan uga mahad celinayaa sida uu soo boqday garoomada Puntland iyo sida uu ugu darsaday waana madaxweynihii ugu horeeyay Puntland intay jirtay muddo 12 sano madaxweyne garoon wax ku dara marka madaxweyne waa ku mahadsan tahay dhalinyarada Puntlandna qulubtooda ayaa ku jirta waxaan rajaynaynaa in Puntland horumarkeed uu noqdo dhammaan gobolada dhan uu gaaro
waxaan rajaynaynaa marka la fiirsho garoomada kubadda cagta Puntland garoonka Gaalkacyo alaabtiisu u diyaarsan tahay guddiga gacanta ku haysana oo mahadcelinayna waxaan rajaynaynaa dhawaan insha Allah isna la gogli doono roogii cagaarna marka shacabka reer Gaalkacyo iyo bahda gacanta ku haysa guddiga iyo bahda sportiga waa mahadsantihiin sidoo kale waxa qorshaha ku jira garoonka Qardho iyo garoonka Boosaaso iyo garoomada Puntland oo dhan iyagana in mataqaana wax laga qabto marka fariinta marka ugu horeysa ka faraya waxay tahay in gobolada Puntland oo sagaalka oo dhalinyarada iyo ganacsatada iyo aqoon-yahanku ay ku nool yihiin inay u kacaan garoomada si dhalinyarada loo jahayo nabadgelyada uga qayb qaataan magaalo markii ay samaysato guddi dibudhis garoon waxay noqonaysaa inay halka ka jiro dad u qareemay garoonkeedii dawladuna doorkeeda ka qaadanayso madaxweynuhuna uu diyaar u yahay meel kasta Puntland horumarinteeda inuu ka qabto marka waxaan leenahay gobolada meesha ka kaca oo horumarka ka shaqeeya garoonka markuu dhamaado garoonka la bilaabaysan kulay garoonka waa garoonka Gaalkacyo Boosaaso la sameeyay October Qardho sidoo kale iyo gobolada kale sidoo kale inay guddiyo samaystaan oo u qareemaan garoonka dawladuna doorkeeda ka qayb qaadato waxaan rabaa inaan ka hadlo qorshayaasha xiriirka kubadda cagta Puntland xaqiiqdii markii la helo garoon wanaagsan oo la helo macallimiin wanaagsan la helo garsoor wanaagsan iyo maamul kubadda cagta waxay noqonaysaa wax qurux badan kadib waxay sheegeen in garoonkan la daahfurayo ciyaaraha xiriirka kubadda cagtuna ay qorshayaal badan ka leedahay qorshayaasha wuxuu nooga sheegay kullay qorshayaasheeda ugu horeeya kullay waxaan rabnaa qorshaha inaan ka hor dhicin qorshe kasta aan qabanayana waxaan kala fariisanaynaa oo garoonkan lagu daafurayo wasiirka wasaaradda oo ah mas'uulka ugu sareeya oo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha marka waxaan rajaynaynaa qorshayaasha xiriirka u dhigsan waa isreebkii kooxaha heer koowaad oo la qorsheeyay inay saddexda Gaalkacyo ay sarkaan laba ka soo baxdo saddexda Nugaale ay sarkaan laba ka soo baxdo sidoo kale saddexda Barina ay sarkaan laba ka soo baxdo saddexda soo hartana ay xiriirka qorsheeyaan meesha lagu qaban lahaa iyagana laba laga rabo sidoo kale mas'uuliyiinta gobolada waxaan dirnay wareegto oo ku socota oo inay abaabulaan tartankii level P Puntland kaasoo la rabo inay kooxaha fursad u helaan in heerka koowaad soo gudbaan marka qorshayaasha ugu horeeya aan insha Allah rajaynayno kulay reebka ugu horeyn doona ciyaari gobolada qorsheysan sidoo wasiirka wareegtada ku soo saaray in gobolada istiyaareen ciyaaro saaxiibtinimo diyaar garoobaan oo xaqiiqdii kulamo qaybtooda dhicin kulamada kalena ay dhacayaan marka waxaan rajaynaynaa in ay ciyaaruhu noqon doonaan kuwa waqti leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan khaasatan salaamayaa tiifiyada oo aad iyo aad nogala qayb qaatay hawshan saaka waxaan u taaganahay garoonka Miro Awaare feeskiisa koowaad sida dadka horeeyba ay sheegeen waxayna naga caawinaysaa wacyigelinta aan wadno oo aan rabno inay caruurtu noqdaan caruur wanaagsan oo aanu kala dagaalano muqaadaraadka tuugada haddii ilaahay ku roon yahay saaqnimada iskuulada ay ka tagayaan waxaasoo dhan waxaan rabnaa inaan dhiirigelin u samayno insha Allah markii garoonkan aanu furaynana qaybaha sportiska oo ilaa heer qaran ilaa heer hoos ah ilaa heer xaafadeed waa isugu yeeraynaa kuwaas aanu ka wacyigelin doono inay ka waantoobaan waxyaalaha ilmaha dib u dhiga waxa weeye waa beerta la beero oo biri la faacsado waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaheena Saciid Cabdullaahi Dani oo aad iyo aad ugu jira sidoo dhalinyarada kor ugu qaadi lahaa tayoontooda iyo tiigsi awalbay tayeen iyo tiigsi isu bixiya waa runta iyo tiigsi waa wadaa waa madaxweynaha kaliya ee ku dhiiraday isagoo wali shaqadii faraha aan la gelin inuu horta ka bilaabo garoonka wallan qaadi la sameeyay sidoo ka horeeyaan aad baan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha dawladda Puntland kaasoo ah nin raba bulsho wanaagsan oo soo saaro waxaana leeyahay madaxweyne waa mahadsan tahay